بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ريال مرول بود دوغتان كوسر ودا عيراha marka daaqada suuqa kala iibsiga ayaa xiisa gaar leh markan Manchester United ayaa isku dayaysa in Barca ay ka afduubato xidiga Antonio Griezmann la yiraahdo Manchester United ayaa sameynaysa isku day ay Atletico de Madrid kaga qalqalsanaysa wariyahankeeda Antonio Griezmann xidigan ayaa la hadalhayay markii hore dhinaca United laakiin goor dambe Barcelona ayaa loo xaglinayay Griezmann ayaa heshiis 5 sanadood la hadalhaya inuu la galayo naadiga Barca inkastoo arintan aysan rasmi ahayn ilaa 1 July oo biri ayaa la rumaysnaa in ay dhamaan karayso 107 milyan oo pound ayayna kooxdu kula wareegaysay waa Barca warsidaa dadsan Ingiriiskana wuxuu leeyahay United oo arrimahan ku jahwareertay markii hore ayaa hadda ku dhawaaqday in afduub ay sameyn doonto oo la xiriira ciyaaryahanka Antonio Griezmann Barcelona ayaa iyadu markaasi ka fakaraysa inay dib u hesho Neymar waxaana suuragal inay ka baxdo arrinta Griezmann sidaasna fursad fiican ay ku hesho kooxda United 133 gool ayuu dhaliyay 250 ciyaarood kooxda Atletico uu ka soo muuqday markii uu ka yimid kooxda Real Sociedad sanadka markii 2014 naadiga United ayaa suuqa ka raadinaysa ciyaartoy dhinaca weerarka ah Griezmann ayaa hadda bartilmaameedka ugu xooggan ay ka dhigaysaa horay Pierre-Emerick Aubameyang ayaa loola xiriirinayo dhinaca Arsenal Lukaku ayaa isna u jahaysanaya dhinaca kooxda Inter inkastoo Aaron Wan-Bissaka ay kooxdan si rasmi ah markaa gacanta ugu soo dhigtay kadib 50 milyan oo pound oo ay ka soo siisatay kooxda lagu magacaabo Crystal Palace ee isla horyaalka waddanka Ingiriiska dhanka kale tana Crystal ayaa la fahamsan yahay in Arsenal ay u gacan gelin doonto Wilfried Zaha haddii qiimaha ay ka heshiyaan Arsenal ayaa markaa isku daygeeda ugu weyn ee dhinaca suuqa waxay ku koobaysaa Crystal Palace wariyahankeeda Wilfried Zaha xagaagan 100 milyan oo pound ayaana lagu qiimeeyay laacibkan Gunners oo xidigan reer Ivory Coast la xiriirinayo ayaa raadinaysa lacaga ay ku kabto kuwa ay suuqa u haysato si ay u hesho ciyaartoygan Selhurst baagagada la yiraahdo markaa ku sugan Unai Emery ayaa markaasi isku dayay 50 milyan oo pound in lagu soo afmiro saxiix ciyaartoygan wasidaha Daily Mailna wuxuu leeyahay Crystal Palace markan waa ay sara u qaaday ciyaartoygan lacagii ay ku rabtay 100 milyan ayana gaarsiisay tan dhabarjab ay ku noqonaysaa kooxda Arsenal 219 oo la fiican ayuu kala qayb galay kooxdiisa maxaa yeelay 10 gool ayuu dhaliyay 10 caawin ayuu sameeyay kadib 34 ciyaarood oo ka soo hoos muuqday Roy Hodgson oo ah tababaraha naadiga Arsenal 45 milyan ayay isku duub suuqa u haystaan ciyaartoy kaga soo iibsatay 2019-2020 oo laha ah tanina waxay dhaawacaysaa hanka Unai Emery oo tababaraha naadiga ah Pierre-Emerick Aubameyang ayaa loo gacan gelinayaa United 70 milyan lacag ka sareysa ayaa lagu iibsanayaa lacagtaas iyo tan lahayo oo la isu kabay ayaa markaa la isku dayayaa in lagu soo qaato ciyaaryahankan Wilfried Zaha weerarkii laba aflaha ee kooxda ayuu u rogayaa macalinkan Alexander Lacazette uu ku soo koobo iyo xidigaha kale yaryar ee naadiga taabadalkeeda wuxuu doorbidayaa nin garabka ka ciyaaro oo khatar badan oo difaacyada ka hor imanayana khatar gelin karaya in markaa uu keeno naadiga